السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايت طبعا ereygan diet markaad maqasho maxaa maskaxdaada ku soo dhaca commentiga sanugula wadaag imise diet ayaad magacaabi kartaa. waxaa jira dunidan wax ka badan 100 diet oo aan wax shaqo ah isku lahayn. dietka wuxuu u kala baxaa mid dhaqan iyo hiddo caado dad leeyahay oo la soo guuriyay ah sida Mediterranean dietka oo ah diet inta badan laga isticmaalo dhulalka xeebaha ah, iyo diet tijaabooyin iyo baaritaano badan kadib la ogaaday in uu bulshada wax weyn ku soo kordhin karo sida carnivore dietka oo maanta mowduucina uu ku saabsan yahay. inta kale way wanaagsan tahay in uu qofku isku dayo ama tijaabooyin badan uu qofka sameeyo oo uu mar walba raadiyo wixii u shaqeyn kari lahaa asaga. kaliya hadhihin mar baan isku dayay waxaan weyna ii shaqeyn weyday. carnivore dietka wuxuu dunida ku dhex jiray wax ka badan 100 sano. Soomaali ahaana dadkeena reer miyiga qaasatan aad bay u isticmaali jireen. waana mararka qaar inaad dadka Soomaaliyeed ka maqlaysid cad iyo caano oo ahaa hilibka iyo caanaha waxa dadka reer miyigu ay aad ugu noolaayeen. waxaa laga qoray buugaag aad u suuq galay noqdayna kuwa ugu wanaagsan New York bestseller, waxaana ugu caansan buug uu qoray nin lagu magacaabo Becker Shawn, magaciisana la dhaho The Carnivore Diet. waxaa ka mid ah dadka aadka u isticmaala natiijo wanaagsanna ka sheegay in dhakhtar ah oo aad u wada taqaanaan psychologist-na ah laguna magacaabo Jordan Peterson. waxaa isxasuusin mudan in aysan qasab ahayn marka hore in dietkan uu adiga kuu shaqeeyo. bini'aadanka ilaahay isku mid muusan ka dhigin genetic ahaanna haddii uu kuu shaqeyn waayo insha Allah ta'ala don't worry, janalkan ku soo bir kuwa kale ayaan waqtiyada soo socdo kula qaybsan doonaa. aan ku bilaawno waxa laga doonayo qofka ama waxyaabaha uu diet ahaanka uu isticmaalaya oo ay kow ka tahay hilibka lo'da, hilibka geela, hilibka ariga, chickenka, kalluunka ama wax walba baddaas ka soo baxaya, ukunta dheer, sidoo kale cheese-ka caanaha ka yimaada. wax walba oo xoolaha ka yimaada aan hilib ahaan u isticmaalno dietkan waad isticmaali kartaa. maxaa faa'iido ku jirta marka? faa'iidooyinka dhanka caafimaadka ah waxaa la sheegaa in uu aad u caawiyo dadka autoimmune disorderka dhibaatada ku qaba. autoimmune disorderku waa marxalad uu immune systemkaaga ama systemka difaaca cudurka jirka uu asaga isweerarayo, uu unugyada jirkaaga dib ugu laabanayo kadibna uu dagaal ku qaadayo halka uu banaanka ka difaaci lahaa. faa'iidada kale laga sheego waxaa ka mid ah in GI tragaaga uu nadiif noqonayo. GI traga waa wadada cuntada marta ee ka soo bilaawata afka ilaa anaska ama halka laga saxroodo. sidoo kalena waxaa ka guuraya dibiryada. faa'iidooyinka ay dadku sheegaan ayay ka mid tahay in proteinka uu berishada ka baxayo. waxaa isbedel weyn ku imaaday dadkii isticmaalka musqushooda weliba wiiga ugu horeeya. dabcan adiga iyo musqusha saaxiibo ayaad noqonaysaan. waxaa sidoo kale sare noqonaya enerjigaaga ama feejignaantaada, howlqabadka. waxaa sidoo kale aad u kordhaya maskaxdaada, focuskaaga. sidoo kale hawada ayuu galayaa jirka ama maskaxda. marka shidaalka lagu kiciyo uu yahay sokorta ama cunooyinkan carbohydrate-ka waxaa uu galaa marxalad aanan deganeyn, isbebedelkana salka ku heeya. tusaale ahaan waxaa laga yaabaa subaxii hore in aad shaqo soo gasho adoo canjeero kusoo quraacday. saacado marka aad joogtidna waxaad dareemaysaa xoogaa inaad caajisan tahay, hurdo ay ku hayso. inta badanna waxaa keeno mar walba oo aad carbohydrate cunto blood glucose-kaaga ama sokorta jirkaaga ku jirto hawada ayay gashaa. xoogaa markii aad joogtidna waa ay soo degtaa. soo degashada ay soo degaysana fluctuationkaas adigu wuxuu kugu sababayaa inaad laziness dareento, inaad marka aad soo qadayso kaleeto oo aad shaqaysan rabto hurdo aad iska dareento. waxaas oo dhan marka aad dietkan ku jirto marka wax blood glucose-kaaga fluctuation ku dhacaya ma lahan. mar walbana insulinkaaga wuxuu ahaanaa mid active ah laakiin howlihii loogu talagalay ee saxda ah qabsanaya. qodobka labaad ahna midka aadka ugu muhiimsan kuna ay wada raadinayaan waa miisaanka miiga dhacaya. dadkii isticmaalay wuxuu miisaanka kaga dhacay isbuuca ugu horeeyey. dietkan ma ahan diet lagu leeyahay bil isticmaal, isbuuca ugu horeeyo ayuu inta badan natiijada ku imaataa. midda kale gaajadaada ayaa zuulaysa. uma baahnid inaad cunto ka dheragto. mar walba jirkaaga asagaa ku siinaya signal kuu sheegaya inaad dheragtay. uma baahnid inaad cuntada miisaanto ama saxan yar aad raadsato ama portionkaaga aad qiyaasto. markaaad carnivore diet samaynaysid mar walba oo cunto cunowgaaga yaraado sidoo kale waxaad ogaataa waxaa hoos noqonaya shaqada insulinka uu ku wado jirkaaga, taa oo kuu fududaynaysa in jirkaaga uusan kaydin baruur tiro badan. waxay soo wacday gabar walaalaha ka mid ah aadna ugu dhibaneed miisaan iyo sidoo kaleeta xanuunka macaanka weliba xal ku heshay. waxay ii sheegtay in ay dietkan isticmaalaysay muddo aanan xasuusan hadda balse sanad gudihiisa ah. nasiib wanaagse markii ay dhakhtarkii ku laabatay waxay aragtay in sokortii ka zuushay oo ay noqotay qof aanan weligeed sokor ku dhicin oo kale. intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. dabcan haddii qof walaalkaaga ah ama familka ama reerka ka mid ah uu xanuunka macaanka qabo waxaan ka codsanaya inaad videogan la wadaagto insha Allah tacaala channelka subscription ka
saara kuna soo dhawaada walaalkiin ko sabriyo idin leh salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh